saddexdan xisbi meesha jooga saddexdan xisbi waa saddexdan xisbi dhidabada u soo aasay iyagoo aan cid allaale cid taakuleynaysa qaarkood ama dad ka mid ay naftooda iyo maalkooda u soo horeen oo waqti fara badan ku soo lumiyeen waa waqtigii ay soo bislaadeen oo siyaasaddu bislaatay dadku ay bisil yihiin in badan laakiin dadku waxa ay leeyihiin hal la bedelo saddexda maartay xiliyada kongaransa madaxda ka ah hal la bedelo mid waa baneeyay laba soo haray hadda markaan soo qaadano xisbiga udub kale xisbiga udub waa xisbi dawlad ah oo dawlad ku asaasmay oo dhaqaale dawladeed haystay oo ma garanaysa aanu oranaynin ana xoolo ku leh ana maartay waqtiga u soo lumiyay ana xoolaha ku soo lumiyay ana carruurteeda uga tagay ana nafteeda uga tagay ana ma garanaysa waqtiga oo dhan ku lumiyay aan noo sheegan karin laakiin haddii ka soo qaadano labada xisbiga kale maanta waxa taagan ragga xisbiyadan loo soo xiray loo soo dhibaateeyay u soo gaajooday shilinka helaan iyo naftooda iyo maalkooda uu ku soo bixiyay maantana qofka bini'aadanka wuxuu u shaqeeyaa inuu noloshiisa meel inuu dhigo oo dadka qaarkood baa aanay abaal iyo ajartoona uga haynin ajar iyo abaaltoona aad moodaa inaan uga bahaynin faa'iidada ay usoo saareen iyo dhidibada ay usoo aaseen waxaan ka soo qaadi karnaa maanta madaxweynuhu dee xisbigan in badan buu soo dagaalamay laakiin kursiga uu ku fadhiistay kursiga uu ku fadhiyaa ballanna wuxuu ku galay inuu xisbiyada furi doono waqtigu furi doono aan la garanayn laakiin ninka la yaabo muxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga ucdoo kale faysal cali waa nin aan maanta ku tilmaami karno hero inaynu ninkii lagu dayan lahaa sida xasamo sheegay uu sheegay saciid sheegay ninkii raggii lagu dayan lahaa dimuqraadiyadda lagu dayan lahaa bugaagta lagu magaranaysaa lagu qori lahaa magaranaysaa carruurta la bari lahaa laakiin dadku waxaanay ka indhatrain ay eegayaanoo qura saddexdan nin way meeshay taagan yihiin saddexdan nin oo qura meesha ma taagna dhimashay leeyihiin dagaal wuu dhintay isagoo guud madaxweyneya way dhimanayaan kan meesha uu ka baxay kana berito ka bixi doonaa marka hala sugo oo hala qaban qaabiyo sidii qaabkii loogu gaari lahaa horumar loogu sii gaari lahaa inagoo aan dhaqaale ku burburin inagoo aan dhibaato badan ayna ku gelin oo Chinese-ka laftigooda lagu hala tuso wixii ay ku banayn lahaayeen wadada ku banayn lahaayeen waxay Umar waa mahadsan tahay saciid hadan su'aasha ugu isku weydiiyay adiga hadii la ogolaado ka soo qaad xisbiyadan in la furo oo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo labada ansixiyo la soo raacay in xisbiga la furo sideed u maleynaysaa inay wax u dhici doonaan ma xisbiyo cusub lagu kordhin doonaa ma kuwii hore dib loo furi doonaayo sideed u aragtaa adiga aad baad mahadsan tahay su'aashaas walaal waa su'aal aad muhiim ah horta su'aasha intaan ka jawaab waxaan ka horeysan lahaa claim-ka ah xisbiga qofku markuu muddo badan u soo shaqeynayay waxa uu soo shaqeynayay waa inuu ogaado horta inuu naftiisa u shaqeysanayay maaha waxa uu shaqeynayay in ummadda iyo jiilashaas soo socda uga taga sharciyad ay berri isku hagaan ku kala dambeeyaan cadaalad iyo sinaan wax ku qaybsadaan way waxa uu dadaalka iyo muddada badan u shaqeynayay marka waa inay taa ogaadaan hogaamiyeyaasha hadda xisbiyada hogaaminayaan yaani oran in muddo badan baan ka soo shaqeynay halkan aniga taabsaday no waxaad u shaqeynaysay mentality-ga afrikaanimada iyo mentality-ga aynu ka baxno mentality-gu waa inay noqoto ummadan uga tag tomorrow something waxa ka haran beritoole hadii aan la oran ama qof ka wanaagsan aan la helin meeshii ma hal iska bedelo on miyaa adigu uu imanaya Chinese meesha banee ogow tomorrow ubadkaaga ubadkiisa ubadka sii dhalay tomorrow buugaagta lagu xusaya taariikhda wax ka tagaysa cadaaladda wax ka fiican oo adduunkan imaada ma jiro marka waxaan u oran lahaa fikrad ahaan hogaamiyeyaashu waa inay ogaadaan taas okay jawaabtaada aan soo noqdo saddexda xisbiya hadda imika jira marka la furo ay dib ugu noqdaan waa inay soo baas gareeyaan wax alla waxa shuruudaha soo buuxiyaan ila mana aha saddexdan xisbiyan inay dib u soo noqon karaan anigoo ka tegaynin oo mahad celinay halka hadda gaarsiiyeen waxaan oran lahaa xisbiyada cusub ee soo galaya
chance bay helayaan fiican wax fiicanna meel fiicanna way gaarsiin karaan laakiin ha ogaado ama madaxda hadda joogtaa sharci ha uga tagaan ummadan maanta sharci ha uga tagaan haddii kale sharci la'aantu kala dambeyn la'aan weeyaan no law no order wax kala dhacay sadarta xasan adoo ka faa'iideysanaya arrintan sidee wuxuu dhici doonaan bay kula tahay haddii la ogolaado xisbiyada horta waxaa ka horeeya go'aanka ugu dambeeya horta madaxweynaha iskale laakiin xisbiyada hadda waa la furayaa baa la yidhi laakiin inaan mid isweydiino weeye waa inuu baarlamaanku baas gareeyaa golaha guurtiduna baas gareeyaa waayo waa hay-ado sharciyo dastuuriya especially weliba golaha baarlamaanka intaa markay soo wada baas mareeyaan ee xisbiyada la ogolaado hadhowta waxaa imanaysaa xisbiyada in tartan la galo ama saddex lagu go-aan kulley tira saddex waa inay ka bataan mar walbaaba oo loo helo inay helaan marka anugu san markii hore yidhi 6 xisbi oo kale hadday macquul tahay inay tartanka galaan marka 6daa xisbi saddexda xisbi hadda jira waa 3 xisbi oo jira oo taariikh bay leeyihiin oo yacni waa wax weyn oo abaal loogu mahad celiyaa horumarka wanaagsan ee Somaliland ku tallaabsatay qayb weyn bay keen 3 xisbi laakiin maadaama hadda ay xisbiga u ciido kale gudoomiyaha Faysal Waraabe laba gool doorashada madaxweynaha ka soo qayb galay daahiriyana wali waa gudoomiyihii xisbiga oo wali mataladii ma wareejin ilaa hadda wax talada wareejiyay oo aan ognahay xaqiiqa waxa weeye madaxweynaha Maxamed Axmed Maxamuud Siilaayo oo gudoomiyihii ku wareejiyay xisbiga Musabix kadib markuu madaxweyne noqday asaga ku dhigtay marka xisbigan talada hadda haya inay soo noqdaan iyo in kale waxay ku xiran tahay inta aan lagu dhawaaqin ama tartanka xisbiyada aan laga qayb galin sida ay u hagaajiyaan xisbiga haddii xisbiga ay doorasho xor u ogolaadaan ma aha inuu la yidhaahdo ama Axmed Faysal Waraabe ama madaxweyne daahir riyaale ka ahayn madaxweynihii hore ee Somaliland in la yidhaahdo qasab ku wareejiya sharciga waxa waafaqsan inay tartanka ka soo qayb galaan oo dad la tartama oo doorashada kala qayb gala tartanka madaxnimada oo xisbiga gudihiisa kala tartama in la helo haddii tartanka ay u tartamaan mar labaad oo ay ku soo guuleystaan waa wax wanaagsan laakiin inta aan xisbiyada la furin ka hor waa inay hagaajiyaan xisbiga oo golihiisa dhexe golihiisa furinta waxaas oo dhan ay hagaajiyaan oo muurka xisbiga ay hagaajiyaan oo dardar cusub ay geliyaan haddii kale de waxa imanaysa sida hadda ay ku jiraan ka muuqato inay de aduu xisbiyada marka la furay soo dhaafi waayaan waayahay bal su-aashaas cumar adigana seed u aragtaa sidee uga habboon baa is leedahay haddiiba la furayo xisbiyada ma xisbiyo cusub baa la samayn doonaa oo lagu soo dari doonaa xisbiyada haatan jira mise dib baa wax oo dhan loo hagaajin doonaayo had iyo kow baa la wada samaynaya kulley anigu waxay la tahay wixii loo qaban qaabiyey inta la cayimi doono de kulley waxay kasoo bixi doontaa xukuumadda kasoo bixi doontaa laakiin anigu aragti ahaan waxaan leeyahay in de marka la tartamo oo hab dimuqraadiyadeed loo tartamo saddexdan xisbi waa taagan yihiin iyagu oo waa 3 xisbi oo taagan oo doonaya in lala tartamo in kuwa kale la keenayana de inay 5 noqonayaan inay 10 noqonayaan inay ka badanayaan de kulley wax u yaala ma garanaysaa de xukuumadda u taala laakiin haddii aniga kulli fikrad ahaan ay noqoto shakhsiyan ma taayada ay noqoto in laga dhigo ilaa 5-6 xisbi laga dhigo oo lagu daro xisbiya kale oo xisbiya lagu daro oo ay markaas soo reebaan kulli umalay maayo xisbiyada cusub ee imanaya hadda inay 3 xisbi gaamuray ee magaranaysaa xididaystay waddanka in badan usoo shaqeynayay hooyo iyo inan iyo oday iyo siyaasiba mid walba kasoo shaqaysiiyey magaranaysaa doorashada loo sameeyey intaasoo sanadood magaranaysaa dee u taagnaa in dee la keenayo wax xoog u bedeli karaa umalay maayo laakiin waxaan leeyahay kulley waa mahadsantahay aad baa u mahadsan tahay waayahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaysanaa barnaamijkii caawa aanu kusoo qaadanaynay xisbiyada siyaasadeed oo loo furi doono Somaliland waxaa igala qayb qaadanaya barnaamijka Saciid Cabdi Saleebaan Cumar Ali Ibrahim iyo waliba Xasan Aadan Tarabi barnaamij ka lamid ah intaan hawada ku kulmi doono
barnaamijkii maareeye oo isbuuciiba mar aad ka daawataan Royal TV waxaanu leenahay salaama برامجك